قروحو هرمرا شقلا هرمود كي هاجر لي مركي تعا هجنوجو هادان هوشيتنا هجو هجنوجو هادان هوشيتنا هجو dad fara badan ayaa kulay sidii loo wada ogaa ama social media lagu baahiyay ka soo qayb galay shaqaaleysiintan inay soo xayisiisaan ama waxa ku dhacday ay ka soo qayb qaataan inay soo xariyaan CV-yadooda tirada lagu qiyaasay inay meesha soo xareysay waxa ay 1577 qof waxaana nasiib yeeshay in selection koobaad lagu soo saaray 78 qof lagu saaray position kasta 66 position bay hayaan 66 ka position kastaba 3 qof ayay markaa hayaan waxaan aragnay anagu hadaan ka shaqaaliyi soo xareystay position ahayn in si loo soo saaray anagoo qofna laga yaabaa in inta badan markaan saas ku wada wareysanay waan isweydiinaa waxaana waradu sidaad ku soo baxday sideed ahayd laakiin qofka soo waxaan ogaanay in all 90% in qof walba si justice lagu soo saaray shortlistkiisi maxaa ka dambeeyay baan daba laan shortlistiga shortlist la soo saar social media la isku wadaarag the next point muxuu ahaanay ilaa waqtiga imkaan joogno waxaan arkayaa 100% si transparency ay u dhacday position kaniya ama si position loo soo wada saaray maalintii koowaadeen xafiiska gudoomiyaha ku booqdaan gudoomiye waa markii ugu horeyseen arko si transparency inay activity-ga marka u socdaan wixii dibadda ama social media la marin jiray dadku oran jireen dawladda marka qof ku soo shaqo tagayo dee loo baniyo leexleex fara badan ama inaad haysatid CV nool oo qof ma haysataaba ayaa jiri jirtay laakiin waxaan qirayaa in maanta anigoon qofna wadan odayna wadan caaqilo wadan xilbaan wadan qof kale wadan inaan maanta heerkaas soo gaaray alxamdulillaah rabbil caalamiin baa leh mas'uulka ugu sareeya gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha iyo focal point yahay madaxweynaha qaranka oo siyaasadii madaxweynaha laga turjumayo waan ma hadnaqaynaa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa hay'adda shaqaalaha oo gudoomiyuhu yahay mudane farxaan يعني waxay qabteen wax aad iyo aad ku dayasho mudan ee jiilasha soo socda inaga iyo intii naga waaweynina afiic doon sidoo idinoo sheegay waxa soo xariistay 1577 qof qofna muu filaynin inteena nimku soo baxday inuu soo bixi doono waayo lambarka aad u badnaa anu run ahaantii markaan shakhsiyadayda ka hadlo waxa igu jiraan waxa idinkeedii ku wada jiraan marka saali isku arkay 1500 waan subhanallah biqadar rahmaan baan u daayay markaan taa arkay alxamdulillah waxa ku xigay short list hadana inaan isku arkay marka waxaan dareemay inay jirto cadaalad alxamdulillah rabbil caalamiin short list imtixaankii baan galay waxa kale oo aad ugu farxay systemka loo diyaariyay imtixaanku waxa system aad iyo aad transparency aan hore uga jirin nidaamka dawladda hore uga jirin nidaamkaas oo ahaa system waxbarashadii aqoonta aan soo qaadanay oo sideedii loo dabaqay waan soo dhaweynayaa dhamaantiin sida fiican ee feerka ee daacadnimada ku jirto ee cadaaladda ku jirto ee hay'adda shaqaalaha iyo gudoomiyuhu idin la garab galeen intaas oo number baad ahaydeen intaas ka soo baxday aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa horta shaqo fiican bay qabteen wasaaraddu way u baahan yihiin shaqaale kalena u jooga haddana waad ka habaysaa maadaama oo ay si gaar ah leedin soo xulay wixii ka dhiman ayaad ku dari doontaan annagu idin garab taagan haddii ilaahay yiraahdo wasaaradda ahaan aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa shaqaalaha cusubana loo qaatay kale guud ahaan hay'adda shaqaaluhu way soo dhaweysay waan hambaleynayaa oo in la tartamo oo tartan lagu kala helo positionska dawladda ka banaanaada iyo hay'adaha dawladda jooyinka ka banaanaada waa wax wanaagsan waxaan filayaa waa talaabo hor leh waana dib u habayn yani waynu bariga hore u hagaagsanayn hoos baan u dhacnay markaan inuu imika soo noolaano waynu dib aqoontii iyo khibradii iyo kartidii aynu u tixgelinaa waa wax wanaagsan hay'adda shaqaalaha aan ku hambaleynaynaa in talaabada ay hore inoogu qaaday aad iyo aad baan idin salaamaya dhamaantiin si buuxaan idin shaqeynayna waa soo dhaweynayna aniga kooxda wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo qoyska igala shaqeynaysa runtii waa wasaarad dadka ugu nugul Soomaaliland u adeegta arrimaha xasaasiga ee wadankeena ka shaqeysa haday noqoto arrimaha la dagaalanka faqriga social protection-kii haday noqoto xuquuqaha shaqada iyo shaqaalaha ee dadka haday noqoto arrimaha haweenka iyo genderka iyo caqabadaha runtii haystay haweenka marka aad iyo aad baan idin soo dhaweynayaa guul baan idin rajaynaynaa waxaan idinka filaynaa
taageero badan firfircooni badan iyo garab istaag badan insha Allah anana soo dhaweyn wanaagsan waxaan filayaa dardaaran iyo talo shalan aynu dhamaysanay wixii aynu halkan idinka sii fari lahayn ay oran lahayn kaliya waxaan munaasabadan u sameeynay inaynu soo xidhno induction training-kii labada cisho idin socday iyo inaanu soo casuuno agaasimayaashii wasaaradaha tagaysaan ee la shaqeynaysaan si aanu si rasmi ah idinku wareejino ugu dambeyn waxaan oran lahaa aad iyo aad baan uga mahad celinayaa dhammaan xubnihiinan ilaahayna garabkiina ha galo agaasimayaasha guud iyo wasaaradaha tagaysaan waanu mahad celinayaa sidii la sheegay qaab dhismeedkii aanu dib u eegnay wasaaradaha ayay ka dhalatay in bosishanadan aanu kaalmahan shaqo aanu soo xulno maaha wax ay maskaxdu ka keentay hay'adda shaqaaluhu wada tashi iyo qaab dhismeedkii la sameeyay kaalmiyo ka dhashay in la buuxiyo oo laga dhigo capacity injection TMBs ka lagu buuxiyaa ayay ka timid wasaaradaha haray 7 wasaaradood oo dambe oo aanan structure-kooda sameeynin qiimeyn ma ku sameynaynaa wasaaradaha iyo qaar aanu qiimeyn ku sameeynay oo aanan TMBs ka ku buuxin labadaba waa soo xayeysiinaynaa anagoo ku darayna 6 kaalmin shaqo ee ka hadhay cid buuxiyo loo waayay ee loo tartamaya ka qayb ahaa 20 ka imika ku soo baxday marka 6daas iyo 7 wasaaradood hadii 30 kaalmo shaqo ka dhalato iyo hadii 40 ka dhalataba waa xayeysiinaynaa habkaas baan isku dayaynaa iyo waliba wixii waaragnimo aanu ka baranay imika tiinan iyo tiidi ka horeysay idinka waa tii labaad baa idinku tii ta saddexaadna waa soo xayeysiinaynaa aqoonyahanka dhalinyarada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane iyo marwo inaan iyo gabadhba way u tartami doonaan si daafuraan ah oo bannaan yaala qaran wuxuu